magacaygu waa maxamed yuusuf maxamed darajadeedu waa xidigle maxamed yuusuf maxamed waxaan ka tirsanaa ururka ciidanka xoogga dalka haddana waxaan u soo noqday dalkaygii inaan u shaqeeyo waxa aan soo bartay inaan u faa'iideeyo waxa weeye waanu korsoona bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan jaac xidigle cabdiraxmaan jaac muuse waxaan ka mid ahaan saraakiishii oo ciidamada Turkisom oo ku soo tababartay dalkaas Turkiga markaanu aragnay caqabad xumada ka taagan iyo midagtabkoor ka taagan federaalka waxaan u go'aansanay in aan wadankeena aan ka tagnay aan u shaqeyno waan u shaqeynaa ilaahinkiis bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iskale soo kaaya keenay makaamkan quruxda badan xidigle bishaar cabdullaahi cali nuur ka soo baxay kulliyadda Turkisom ku soo bartay dalka Ismiir ee dalka Turkiga ka soo baxay dugsiga la dagaalanka argagixisada markaan ka soo baxnay waan soo dhameysanay shamcadeedii aan u aadnay waxaan ku soo noqonay Muqdisho anigu gaar ahaan waxaan joogay wasaaradda gaashaandhigga dhalinyarada markaa dalka wuxuu soo bartay oo Soomaalinimadu meesha geysay qofkuna waxa fiican inuu sharaftiisa dhowro oo sharaftiisa waxba siisan waxaan hadda u soo noqday oo halkaan u imid inta iga hooseysa oo dhalinyaradeedii aan wax soo wada baranay dugsiyada ka soo wada baxnay in uu faa'iideeyo iyo intii gobolkayga la nooleed gaar ahaan waxaan ku dhashay Galkacyo aabahay wuxuu ahaa nin booliska oo sargaala ninkii waxaan ahaa ku soo bartay meesha la dumiyay hadda Kambo sida loo yaqaan marka waa dareemaysaa qofku marka uu yimaado gurigiisa waxa ka soo kaxeeyay meesha uu ka yimid marka sharaf ay tahay inaan ku soo noqdo gurigayga hooyo inaan u faa'iideeyo dhalinyarada yarka oo ari iga dambeeyso oo hadda ciidanka ku soo biiray iyo in aan ka qayb qaato dibdhiska Puntland ciidamadu ku sameeyaan aad u mahadsan yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka daraawiishta oo si hufan u shaqeynaya waana waxa annaga markii hore nagxay laakiin kadib aan aragnay in dalkayga kor u kac u sameeyay annaguna aan rabno inaan la shaqeyno diyaarna waxaan u nahay xataa nafteeda haddaan iibsanayno inaan dalkayga u hibeeno anigu waxaan ka soo baxay ciidanka waxaan ka tirsanaa ururka shanaad waxaan ku tagnay 120 nin koorsada waxaan ku aadnay 20 waa dareemaysaa meesha faqriga aadka uga yimid saas oo ay tahay adduunka waxa lagu kala tartamaa aniga iyo sheeg dhalinyarada kale la socoto asxaabtayda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xidigle cabdisamed cabdullaahi waxaan ahaa dilowkii ciidamada kumaandoosta gorgor waxa ka mid ah ciidamada Turkiga lagu tababaray waliba dilowkii kuuraya qaybta madaafiicda oo qodilka qoriga hoobiyaha dilowkii kuurayahay waxaan ahay ciidan Soomaaliyeed anagu awal meesha Soomaaliland ka xisay maanta dad Soomaaliland soo celisay dilowkii wadankeena ciideena noo baahan hadduu alla inna dilowkii wadankeena ciideena dilowkii waa u dagaalamayna dilowkii dalkan Soomaaliland mar walba diyaar baabna xaalado ku jiro billahi tawfiiq inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgaladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgalada la galaa sida hadda koonfurta kale ma ahano meel argagixis mar soo dhashay ma ahane wadan nabad askari jooga weeye oo raaxaysanaya saraakiil dhalinyaro ah oo ragii ku soo tababartay ah wadanka Turkiga oo aqoonta ciidanka fiican soo bartay oo lagu soo biiray oo dib ugu soo laabtay dalkoodii waa u mahad celinaynaa iyaga iyo dawladihii tababarayba oo gartay inay waxay u tababarteen iyo tababarkan meesha looga baahan yahay inay tahay deegaanka ay u dhasheen dalka Soomaaliya dabcan waa isku mid oo saraakiil Soomaaliyeed laakiin hadee maalinba meelba ay qofku uu ku haboon yahay inuu ka shaqeeyo marxaladda hadda xamar iyo koonfur ka jirta waa garanayna waxaad moodaa ciidamadii Soomaaliyeed oo la soo tababaray shaqadii adduunka ugu talagaleen Soomaaliya uga caawiyaan inay u qaban marka iyaguna waxay garteen inay shaqada ka qayb noqon qalooca ah oo dalka hadaanta loogu wado aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa una soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka ku soo qaatay wadamada kala gedisan ee adduunka oo Turkiga ugu horeeyo oo awalna dhalinyarada mutacalimiinta ah iyagoo iskuulada sare ka baxay ugu yaraan la diray oo dad wax bartay ahaa in ayan
inay mustaqbalka dadka iyagu leeyihiin inay ogaadaan ayaan qaloocyada jiro dhanna ka qayb qaadan wixii deegaamada Puntland dadkii ahaa oo ka soo jeedayna Puntland ciidamada dib u habeyn baa lagu sameeyay waxay u baahan yihiin inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgaladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgalada la galaa sida hadda koonfurta kale ma ahano meel argagixisa mar soo dhashay ma ahane wadan nabad askari jooga weeye oo raaxaysanaya dhalinyaradaas in ay ka mid noqdaan saraakiisha dawladda Puntland in ay halkooda difaaca ka galaan in ay qayb ka noqdaan diyaarinta iyo soo saaridda saraakiil iyo leeli sarkaalo cusub oo ay yeelan doonto dawladda Puntland difaacoodana halka ay kaga jiraan maalinta loo baahdo inay qayb ka noqdaan difaaca Soomaaliya iyo meeshii looga baahdo inay qayb ka noqdaan iyagoo ciidamada Puntland ka tirsanna inaanu diyaar u nahay inay ka qayb galaan intaana waa u sheegaynaa aad baan u mahadsantihiin waxaan fariin u dirayaa aan uga faa'iideysanayaa munaasabadda tan dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada fursadda u helay iyo dableyda inay ka faa'iideystaan tababarada noocaas oo kale inay galaan inay ka mid noqdaan ciidamadii qaranka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa albaabka iyagu inuu u furan yahay inay iman karaan Puntland inay difaaca ka qayb geli karaan inay saraakiisha Puntland ka mid noqon karaan Soomaali oo dhan meeshay doonaan ka soo jeedaan inuu albaabku u furan yahay hay'ad anagu waxaanu aaminsanahay hal cadow inaynu leenahay cadowgaasna inuu yahay argagixisada meel kasta uu joogana inuu cadow inoogu yahay marka gobolku doono ha ka soo jeedo Soomaali mar hadduu yahay Soomaali tababar qaatay u diyaarsan inuu dalkiisa dadkiisa difaaco albaabada Puntland oo furan yihiin ciidamada waxaan rabnaa saraakiishan inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada dawladda Puntland inay ka mid noqdaan saraakiisha hananaya ciidamada waxa hanta saraakiishaas dhexe kabtan laba xidigle waa ciidamada rag hanta waan inta ugu muhiimsan anagu aan raadinaynay maanta wixii ka dambeeya taliye ciidanku waa jooga waa la magacaabaya shaqooyinka qaban lahaydeen baa la magacaabaya cilmigii iyo wixii aad soo barateen baa la rabaa inaad dadka u faa'iideystaan ciidamada waxa la rabaa waxa la wadaniyada iyo jiritaanka iyo waxa soo cilmigii la soo baray inaad banaan baa la idinka rabaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan kelmad ku dariyaa kelmadii wasiirka amnigu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Puntland waa u simanta qof kasta ama reer Puntland ha aado ama reer Shabeelle ha aado ama reer Koonfur Galbeed ha aado ama reer Jubbaland ha aado banaadir ha aado qof kasta magacaygu waa maxamed yuusuf maxamed rajaleedu waa xidigle maxamed yuusuf maxamed waxaan ka tirsanaa ururka waxaan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka haddana waxaan u soo noqday dalkaygii inaan u shaqeeyo waxa aan soo bartay inaan u faa'iideeyo waxa weeye waanu korsoona bismillaah magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaac xidigle Cabdiraxmaan Jaac Muuse waxaan ka mid ahaa saraakiishii oo ciidamada Turkisom oo ku soo tababartay dalkaas Turkiga markaanu aragnay caqabad xumada ka taagan iyo midabkoor ka taagan federaalka waxaan u go'aansanay in aan wadankeeni aan ka tagnay aan u shaqeyno waan u shaqeynaa ilaahinkiis bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad iskale suuqaya keenay makaamkan quruxda badan xidigle bishaar Cabdullaahi Cali Nuur ka soo baxay kulliyadda Turkisom ku soo bartay dalka Ismiir ee dalka Turkiga ka soo baxay dugsiga la dagaalanka argagixisada markaan ka soo baxnay waan soo dhameysanay shamcadeedii aan u aadnay waxaan ku soo noqonay Muqdisho anigu gaar ahaan waxaan joogay wasaaradda gaashaandhigga dhalinyarada markaa dalka wuxuu soo bartay oo Soomaalinimadu meesha geysay qofkuna waxaa fiican inuu sharaftiisa dhowro oo sharaftiisa waxba siisan waxaan hadda u soo noqday oo halkaan u imid inta iga hooseysa oo dhalinyaradeedii aan wax soo wada baranay aan dugsiyada ka soo wada baxnay ina u faa'iideeyo iyo intii gobolkaygu la nooleed gaar ahaan waxaan ku dhashay Galkacyo aabahay wuxuu ahaa nin booliska oo sargaala ninkii waxaan ahaa ku soo bartay meesha la dumiyay hadda Kambo sida loo yaqaan marka waa dareemaysaa qofku marka uu yimaado gurigiisii waxa ka soo kaxeeyay meesha uu ka yimid marka sharaf ay tahay inaan ku soo noqdo gurigayga hooyo inaan u faa'iideeyo dhalinyarada yarka oo ari iga dambeeyso oo hadda ciidanka ku soo biiray iyo in aan ka qayb qaato dibdhiska Puntland ciidamadu ku sameeyaan aad bay u mahadsan yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka daraawiishta
oo si hufan u shaqaynaya waana waxa annaga markii hore nagxay laakiin kadib aan aragnay in dalkayga kor u kac u sameeyay annaguna aan rabno inaan la shaqayno diyaarna waxaan u nahay xataa naftayada haddaan iibsanayno inaan dalkayga u hibayno anigu waxaan ka soo baxay ciidanka waxaan ka tirsanaa ururka shanaad waxaan ku tagnay 120 nin koorsada waxaan ku aadnay 20 waa dareemaysaa meesha faqriga aadka uga yimid saasoo ay tahay adduunka waxaa lagu kala tartamaa hoggaan haddaysan meesha hoggaan lahayn ma sii soconayso markii saraakiilshoodu waxay noqon kartaa markii sargaalkaa waaya aragsan wax ku kordhin kara cilmigu ku tari kara laakiin nin dhalinyaro oo darajada loo xiray lagu yiri ha lagu maamulo dhibteeda waa dareemaysaa markii intii qof aan wax yeeli lahaa waxa fiican anoo ceeb ka salin inaan ka dhaqaaqo raxmaan raxiim waxa aad u mahad celinayaa wasiirada taliyaha ay sheegay ciidanka mataqaanaa difaaca Puntland waxaan uga mahad celinayaa munaasabada weyn ay noo sameeyeen ay waqtigeena siiyeen haddaan nahay dhalinyarada dib ugu soo laabtay ii sheeg goboladii ay awal ka aadeen dawladda Soomaaliya manin annaga dad Soomaalinimada diidan manin ii sheeg dad mataqaanaa sida ii sheeg maamulada kale gooni inta isku taageereen annaga Soomaali manin Soomaali baan nahay ii sheeg calanka waa sidana waa kan halkaas ugu dhagan yahay waxa awal u tagnay iyo waxa meesha ugu tagnay isku mid maaha annaga awal waxa raadsanay waxaan ciidan Soomaaliyeed waxa raadin inaad waxa damacnay inaad doono ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan ii sheeg waxa jira meelo badan oo shabaab ku haystaan hadeer waxa la yiri ii sheeg marka wanaaga bilaabaysid waxa laga bilaabaa gurigaaga maanta aan ii sheeg buuraha galgalo waxa haysta al-shabaab hariyaha wiilal baa ii sheeg mataqaanaa u soo jeeda u dhabar adeega okay maanta hadaa galgalo inta ka tago bari yar ku dhinta maxaa waxa ay mala marka ii sheeg wanaaga waxa ka bilaabana gurigeena aniga iyo sheeg dhalinyarada kale la socoto asxaabtayda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xidigil Cabdisamed Cabdullaahi waxaan ahaa dilowga ciidamada kumaandoosta gorgor waxa ka mid ah ciidamada Turkiga lagu tababaray waliba dilowga kuuraya qaybta madaafiicda oo qodilka qoriga hoobiyaha dilowga kuurayahay waxaan ahay ciidan Soomaaliyeed anagu awal meesha Soomaaliya ka xisay maanta Soomaaliya soo celisay dilowga kuuriga wadankeena iyo ciideena noo baahan hadduu alla in dilowga kuuriga wadankeena ciideena dilowga kuuriga waa u dagaalamayna dilowga kuurayahay dilowga dalkan Soomaaliya mar walba diyaar baabna xaalado ku jiro billahi tawfiiq inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgaladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgalada la galaa sida hadda koonfurta kale ma ahano meel argagixisa mar soo dhashay ma ahane wadan nabada askari jooga weeye oo raaxaysanaya saraakiil dhalinyaro ah oo ragii ku soo tababartay ah wadanka Turkiga oo aqoonta ciidanka fiican soo bartay oo lagu soo biiray oo dib ugu soo laabtay dalkoodii waa u mahad celinaynaa iyaga iyo dawladihii tababarayba oo gartay inay waxay u tababarteen iyo tababarkan meesha looga baahan yahay inay tahay deegaanka ay u dhasheen dalka Soomaaliya dabcan waa isku mid oo saraakiil Soomaaliyeed laakiin hadee maalinba meelba ay qofku uu ku haboon yahay inuu ka shaqeeyo marxaladda hadda xamar iyo koonfur ka jirta waa garanayna waxaad moodaa ciidamadii Soomaaliyeed oo la soo tababaray shaqadii adduunka ugu talagaleen Soomaaliya uga caawiyaan inay u qaban marka iyaguna waxay garteen inay shaqada ka qayb noqon qalooc ah oo dalka hadaanta loogu wado aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa una soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka ku soo qaatay wadamada kala gedisan ee adduunka oo Turkiga ugu horeeyo oo awalna dhalinyarada mutacalimiinta ah iyagoo iskuulada sare ka baxay ugu yaraan la diray oo dad wax bartay ahaa inay mustaqbalka dadka iyagu leeyihiin inay ogaadaan ayaan qaloocyada jiro dhan ka qayb qaadan wixii deegaamada Puntland dadkii ahaa oo ka soo jeedayna Puntland ciidamada dib u habeyn baa lagu sameeyay waxay u baahan yihiin inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgaladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgalada la galaa sida hadda koonfurta kale ma ahano meel argagixisa mar soo dhashay ma ahane wadan nabada askari jooga weeye oo raaxaysanaya dhalinyaradaas in ay ka mid noqdaan saraakiisha dawladda Puntland
in ay halkooda difaaca ka galaan in ay qayb ka noqdaan diyaarinta iyo soo saaridda saraakiil iyo leelisarkaallo cusub oo ay yeelan doonto dowladda puntland difaacoodana halkaa ay kaga jiraan maalinta loo baahdo inay qayb ka noqdaan difaaca soomaaliya iyo meeshii looga baahdo inay qayb ka noqdaan iyagoo ciidamada puntland ka tirsanna inaanu diyaar u nahay inay ka qayb galaan intaana waa u sheegaynaa aad baan u mahadsantihiin waxaan fariin u dirayaa waan uga faa'iidaysanaya munaasabadda tan dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeennada fursadda u helay iyo dableyda inay ka faa'iidaystaan tababarada noocaas oo kale inay galaan inay ka mid noqdaan ciidamadii qaranka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa albaabka iyagu inuu u furan yahay inay iman karaan puntland inay difaaca ka qaybgeli karaan inay saraakiisha puntland ka mid noqon karaan soomaali oo dhan meeshay doonaan ka soo jeedaan inuu albaabku u furan yahay maxaa yeele annagu waxaanu aaminsannahay hal cadow inaynu leenahay cadowgaasna inuu yahay argagixisada meel kasta uu joogana inuu cadow inoogu yahay marka gobolkuu doono ha ka soo jeedo soomaali mar hadduu yahay soomaali tababar qaatay u diyaarsan inuu dalkiisa iyo dadkiisa difaaco albaabada puntland waa u furan yihiin ciidamada waxaan rabnaa saraakiishan inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada dowladda puntland inay ka mid noqdaan saraakiisha hananaya ciidamada waxaa hanta saraakiishaas dhexe kabtan laba xidigle waa ciidamada ragga hanta waana inta ugu muhiimsan annagu aan raadinaynay maanta wixii ka dambeeya taliya ciidanku waa joogaa waa laydin magacaabayaa shaqooyinkii qaban lahaydeen baa laydin magacaabayaa cilmigii iyo wixii aad soo barateen baa la rabaa inaad dadka u faa'iidaysaan ciidamada waxaa la rabaa waxa la wadaniyadda iyo jiritaanka iyo waxaasoo dhan cilmigii laydin soo baray inaad badhaan baa laydinka rabaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kelmad ku darayaa kelmaddii wasiirka amnigu yidhi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed puntland waa u simanta qof kasta ama reer puntland ha ahaado ama reer hirshabeelle ha ahaado ama reer koonfur galbeed ha ahaado ama reer jubbaland ha ahaado banaadir ha ahaado qof kasta magacaygu waa maxamed yuusuf maxamed rajadeedu waa xidigle maxamed yuusuf maxamed waxaan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka haddana waxaan usoo noqday dalkaygii inaan u shaqeeyo waxa aan soo bartay inaan u faa'iideeyo waxa weeye waana korsoona bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan jaac xidigle cabdiraxmaan jaac muuse waxaan ka mid ahayn saraakiishii oo ciidamada turkisom oo kusoo tababaratay dalkaas turkiga markaanu aragnay caqabad xumada ka taagan iyo midigtabkoor ka taagan federaalka waxaan u go'aansannay in aan waddankeennii aan ka tagnay aan u shaqayno waan u shaqaynaynaa ilaahayinkiis bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale isugu kaaya keenay makaamkan quruxda badan xidigle bishaar cabdulaahi cali nuur ka soo baxay kulliyadda turkisom ku soo bartay dalka ismiir ee dalka turkiga ka soo baxay dugsiga la dagaalanka argagixisdirirka markaan ka soo baxnay waan soo dhammaysanay shamcadeedii aan u aadnay waxaan ku soo noqonay muqdisho anigu gaar ahaan waxaan joogay wasaaradda gaashaandhigga dhalinyaradii markaa dalka wax u soo bartay oo soomaalinimadu meesha geysay dee qofkuna waxaa fiican inuu sharaftiisa dhowro uusan sharaftiisa waxba siisan waxaan hadda u soo noqday oo halkaan u imid inta iga hooseysa oo dhallinyaradeedii aan wax soo wada baranay aan dugsiyada ka soo wada baxnay inaan u faa'iideeyo iyo intii gobolkaygu la nooleed gaar ahaanana waxaan ku dhashay gaalkacyo aabbahay wuxuu ahaa nin booliska oo sargaala raggii waxaan ahaa kusoo bartay meesha la dumiyey hadda cambo sida loo yaqaano marka waa dareemaysaa qofku marka uu yimaado gurigiisii waxaa ka soo kaxeeyey meeshii uu ka yimid marka sharaf bay ii tahay inaan kusoo noqdo gurigayga hooyo inaan u faa'iideeyo dhalinyarada yararka oo ani iga dambayso oo hadda ciidanka kusoo biiray iyo in aan ka qayb qaato dhibdhiska puntland ee ciidamadu ku sameynayaan aad bay u mahadsan yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka daraawiishta oo si hufan u shaqaynaya waana waxa annaga markii hore nakaxiyay laakiin kadib aan aragnay in dalkayagii kor u kac u sameeyey annaguna aan rabno inaan la shaqayno diyaarna waxaan u nahay xataa naftayada haddaan iibsanayno inaan dalkayaga u hibayno anigu waxaan ka soo baxay ciidanka waxaan ka tirsanaa ururka shanaad waxaan ku tagnay 120 nin koorsada waxaan ku aadnay 20
waa dareemaysaa meesha faqriga aadka uga yimid saasoo ay tahay adduunka waxaa lagu kala tartamaa hoggaan haddaysan meesha hoggaan lahayn ma sii soconayso markii saraakiilshaadu waxay noqon kartaa markii sargaalkaa waaya aragsan wax kuu kordhin kara cilmiku ku tari kara laakiin nin dhalinyara oo darajada loo xiray lagu yiri ha lagugu maamulo dhibteeda waa dareemaysaa marka intii qof aan wax yeeli lahaa waxaa fiican anoo ceeb ka sanin inaan ka dhaqaaqo raxmaan raxiim waxaa aad u mahad celinayaa wasiirada taliyaha ishaga ciidanka mataqaanaa difaaca Puntland waxaan uga mahad celinayaa munaasabada weyn ay noo sameeyeen ay waqtigeena siiyeen haddaan nahay dhalinyarada dib ugu soo laabtay isheeg goboladii ay awal ka aadeen dawladda Soomaaliya manin annaga dad Soomaalinimada diidan manin isheeg dad mataqaanaa sida isheeg maamulada kale gooni inta isku taagan yiri annaga Soomaali manin Soomaali baan nahay isheeg calanka waa sidana waa kan halkaas ugu dhagan yahay waxa awal u tagnay iyo waxa meesha ugu tagnay isku mid maaha annaga awal waxa raadsanay waxaan ciidan Soomaaliyeed waxa raadin waxa damacnay inaad doono ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan isheeg waxa jira meelo badan oo shabaab ku haystaan hadeer waxa la yiri isheeg marka wanaaga bilaabaysid waxa laga bilaabaa gurigaaga maanta aan isheeg buuraha galgalo waxa haysta al-shabaab hariyaami wiilal baa isheeg mataqaanaa u soo jeeda u dhabar adeega okay maanta hadaa galgalo inta ka tago bari yar ku dhinta maxaa waxa ay mala marka isheeg wanaaga waxa ka bilaabana gurigeena aniga iyo isheeg dhalinyarada kale la socoto asxaabteyda bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Xidigil Cabdisamed Cabdullaahi waxaan ahaa dilowkii ciidamada kumaandoosta gorgor waxa ka mid ah ciidamada Turkiga lagu tababaray waliba dilowkii kuuraya qaybta madaafiicda oo qodilka qoriga hoobiyaha dilowkii kuurayahay waxaan ahay ciidan Soomaaliyeed anagu awal meesha Soomaaliya ka xaysay maanta dad Soomaaliya soo celisay dilowkii wadankeena ciideena loo baahan hadduu alla inana dilowkii wadankeena ciideena dilowkii waa u dagaalamayna dilowkii kuurayahay dilowkii dalkan Soomaaliya mar walba diyaar baawna xaalado ku jiro billahi tawfiiq inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgaladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgalada la galaa sida hadda koonfurta kale ma ahano meel argagixisa mar soo dhashay ma ahane wadan nabad askari jooga weeye oo raaxaysanaya saraakiil dhalinyaro ah oo ragii ku soo tababartay ah wadanka Turkiga oo aqoonta ciidanka fiican soo bartay oo lagu soo biiray oo dib ugu soo laabtay dalkoodii waa u mahad celinaynaa iyaga iyo dawladihii tababarayba oo gartay inay wax u tababarteen iyo tababarkan meesha looga baahay inay tahay deegaanka ay u dhasheen dalka Soomaaliya dabcan waa isku mid oo saraakiil Soomaaliyeed laakiin hadee maalinba meelba ay qofku uu ku haboon yahay inuu ka shaqeeyo marxaladda hadda xamar iyo koonfur ka jirta waa garanayna waxaad moodaa ciidamadii Soomaaliyeed oo la soo tababaray shaqadii adduunka ugu talagaleen Soomaaliya uga caawiyaan inay u qaban marka iyaguna waxay garteen inay shaqada ka qayb noqon qalooc ah oo dalka hadaanta loogu wado aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa una soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka ku soo qaatay wadamada kala gedisan ee adduunka oo Turkiga ugu horeeyo oo awalna dhalinyarada mutacalimiinta ah iyagoo iskuulada sare ka baxay ugu yaraan la diray oo dad wax bartay ahaa inay mustaqbalka dadka iyagu leeyihiin inay ogaadaan ayaan qaloocyada jiro dhan ka qayb qaadan wixii deegaamada Puntland dadkii ahaa oo ka soo jeedayna Puntland ciidamada dib u habeyn baa lagu sameeyay waxay u baahan yihiin inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgaladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgalada la galaa sida hadda koonfurta kale ma ahano meel argagixisa mar soo dhashay ma ahane wadan nabad askari jooga weeye oo raaxaysanaya dhalinyaradaas in ay ka mid noqdaan saraakiisha dawladda Puntland in ay halkooda difaaca ka galaan in ay qayb ka noqdaan diyaarinta iyo soo saaridda saraakiil iyo leeli sarkaalo cusub oo ay yeelan doonto dawladda Puntland difaacoodan halka ay kaga jiraan maalinta loo baahdo inay qayb ka noqdaan difaaca Soomaaliya iyo meeshii looga baahdo inay qayb ka noqdaan iyagoo ciidamada Puntland ka tirsanna inaanu diyaar u nahay inay ka qayb galaan intaana waa u sheegaynaa aad baan u mahadsantihiin waxaan fariin u dirayaa
waan uga faa'iidaysanaya munaasabadda tan dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada fursadda u helay iyo dableyda inay ka faa'iidaystaan tababarada noocaas oo kale inay galaan inay ka mid noqdaan ciidamadii qaranka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa albaabka iyagu inuu u furan yahay inay iman karaan Puntland inay difaaca ka qayb geli karaan inay saraakiisha Puntland ka mid noqon karaan Soomaali oo dhan meeshay doonaan ka soo jeedaan inuu albaabku u furan yahay hay'ad anagu waxaanu aaminsanahay hal cadow inaynu leenahay cadowgaasna inuu yahay argagixisada meel kasta uu joogana inuu cadow inoogu yahay marka gobolku doono ha ka soo jeedo Soomaali mar hadduu yahay Soomaali tababar qaatay u diyaarsan inuu dalkiisa dadkiisa difaaco albaabada Puntland oo furan yihiin ciidamada waxaan rabnaa saraakiishan inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada dawladda Puntland inay ka mid noqdaan saraakiisha hananaya ciidamada waxa ahaanta saraakiishaas dhexe kabtan laba xidigle waa ciidamada ragga hanta waan inta ugu muhiimsan anagu aan raadinaynay maanta wixii ka dambeeya taliye ciidanku waa jooga waa la magacaabaya shaqooyinka qaban lahayd baa la magacaabaya cilmigii iyo wixii aad soo barateen baa la rabaa inaad dadka u faa'iideysaan ciidamada waxa la rabaa waxa la wadaniyada iyo jiritaanka iyo waxa soo cilmigii leen soo baray inaad banaan baa la idinka rabaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan kelmad ku dariyaa kelmadii wasiirka amnigu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Puntland waa u simanta qof kasta ama reer Puntland ha aado ama reer Shabeelle ha aado ama reer Koonfur Galbeed ha aado ama reer Jubbaland ha aado banaadir ha aado qof kasta